madaxweyne Donald Trump ayaa jimcihii waxa uu ku dhawaaqay in Serbia iyo Kosovo ay caadi ka dhigeen xiriirkooda dhinaca dhaqaale taasi oo qayb ka ah wadahadallo uu Mareykanku garwadeen ka yahay oo ay ka mid tahay Serbia inay safaaradeeda Israa'iil u wareejiso magaalada Jerusalem iyo in Israa'iil iyo sidoo kale Kosovo ay is-ictiraafaan kadib kulamo 2 maalmood qaatay oo ay yeesheen saraakiisha maamulka Trump madaxweynaha wadanka Serbia iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Kosovo waxaana ay ku heshiiyeen inay iska kaashadaan dhinacyada kala duwan ee dhaqaalahaas si loo sameeyo maalgashi iyo sidoo kale shaqo abuur ku dhawaaqista ayaa madaxweyne Trump siinaysa guud diblomaasiyadeed ka hor doorashada madaxtinimada ee dhacaysa 3 bisha November iyadoo ay sii kordhayaan dadaalada Mareykanku uu ku doonayo inuu hagaajiyo meeqaamka Israa'iil ee dunida madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu ku dhawaaqo ballanqaad dhab ah oo taariikhi ah isagoo ay garab taagan yihiin labada hogaamiye oo kala saxeexday heshiis iskaashi oo dhaqaale Trump ayaa waxa uu sheegay in Serbia ay ka go'an tahay in bishani xafiis ganacsi ay ka furato magaalada Jerusalem safaaradeedana ay halkaasi u wareejiso bisha July go'aankani ayaa ah mid aanay filayn Israa'iil iyo Mareykanku maamulka Trump ayaa dhamaadkii sanadkii 2017 waxay magaalada Jerusalem u aqoonsadeen inay tahay caasimadda Israa'iil iyagoo bishii May ee sanadkii 2018 ay safaaradooda u rareen halkaasi laakiin waxa talaabadaasi si weyn u dhaleeceeyay Falastiiniyiinta iyo wadamo badan oo kamid ah Yurub kuwaasi oo sabab ka dhigay inaan wali la hagaajin khilaafka u dhaxeeya Israa'iil iyo Falastiin Kosovo waxa ay noqonaysaa dalkii ugu horeeyay ee muslimiin ay u badan yihiin ee safaarad ka furta Jerusalem ayuu yidhi ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waan u libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya Samtel shirkadda dadweynaha